jirta Mandera county qaas ahaan Mandera East gobolka Mandera East oo Cabdirashiid Janan ninka la yiraahdo oo ka soo baxsaday xabsiga Muqdisho oo ciidankiisa uu keenay magaalada iyada inaan cambaarayno inaan ka hor imaano inaan diyaar u nahay inaan ogolaanaynin marnaba in ciidan uu joogo magaalada Mandera ama meel ka mid ah county-ga Mandera haddana aan madaxda laga soo doortay meeshaas iyo dadweynahaba waxaan u sheegaynaa Cabdirashiid Janan iyo inta taageersanbo inay county-ga Mandera iskaga baxaan oo aadaan meel alla meesha laga soo dhaweynayo maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadankooda inay soo galaan hubkii ay lahaa inay la soo galaan ayna wadankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan dadweynaha meel ay ka qoranta ma lahan haddii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliska Kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dawladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo dagaalka iskiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu degdeg badan waxaan ku soo dhaweynaa sanadka Mandera insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Soo sheegay walaalkay kullay Mandera dib baa ka taagan dadkana wuxuu ka yimid dhinaca Soomaaliya arrin ka dhaxayso dawladda federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ayaan saameynaysaa marka waxaan oo maqala oo maartay Mandera arkayaan dad wasiiriina iyo madaxweyne ku xigeenna ayaa degan hotel Mandera ku yaalo ciidankii bulaha oo degna oo Jubaland waxaa lagu sheegay waxay joogaan burburu xuduudkii Kenya bay ku dhaxiraan marka arrin halis waay Mandera dib bay ku sugan yihiin laga yaabo in maartay ciidankaasi kan bulaha oo joogo kana Mandera fadhiyo in ay isku dhacaan marka nabadgelyo Mandera ayaa dib ku taagan ma ogolin dhulkaagana maartay laga dhigo meel baa soo dagaalo waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo nimankana joogaan oo Cabdirashiid Janan kan wasiirka leeyahay Mandera lagu sheegay Mandera joogo inuu ka baxo magaalada inay ka baxo dadkii taageerayna haday tahay dawladayna inay ka baxiyaan meel ay geey karaan hageeyaan laakiin laga saaro Mandera ma ogolin marna dhulkaan laga dhigo meel maartay dagaal ka dhacay oo maartay anaka dib loo geeyo dadweynaha reemna waxaan leenahay madaxdiina anaka waan taariikhsanahay marna dadkani wayna ka qaadina aan laga saaro waxaan leeyahay marka dawladayna Kenya inay taageersan tahay sheegaya waxaan ka codsanaynaa sharciga adduunka ma ogolo dad hubaysan inay ku soo dhulkaas soo galaan oo ku joogaan haday soo galaan in maartay laga qaado hubka laga qaado laajiin noqdaan haddii asilna sii rabana asilna la soo qaado hala sii Nairobi hala geeyo laakiin meelahaas ay dhulka laga fayo ma ogolin waxaan leenahay ما يكبح عند الدين ولا ما يبقى كبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جبنا علي إبراهيم روب جانا مندرة. سيدو ولا ياشر شيئين ما أنتوا حنقولني نيروبي مسؤولين تهرب مندرة وحكم قناعي مالهن. أنتوا هو إنه ما أنتوا سوي ما إنه حيهد أنتوا هذا خسرته بودر كيني أنتوا سواء إن مردو دولة فدرالك Soomaaliya ay u soo dirtay askar federaal ah inay gedo region qaybo ka mid ah ay mas'uuliyadda dhinaca security iyo administration-ka ay la wareegaan taasoo ka imaaday dhibaatooyinka ka taagan dowlad goboleedka Kismaayo iyo dowladda federaal annagoo mas'uuliyiinta reer Mandera tani xilligii madaxweynihii hore Allah u naxariistay Siyaad Barre uu haystay wadanka Soomaaliya مسؤولين تمندر الشعب كبا ما دام جيران لنا هاي ومدة الصومالية ولا لنا هاي مش هنسلد دجنا هاي فركيل اسمنا سماينين مسؤولين هدانا هاي جيران تاني ما دام بندوريني دران قعن سيني إن أول بابا ما يسجلين وحنا كده دالني إن كنا قنارين تا نيوترال دران نقطة بحر سنين هل ده مركارين waxay keentay in dadkii mar hore administration uu hay Jubaland in Adolo iyo Beled Xawaba ay laga soo bixiyay oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb ka mid ah magaalada Mandera ay degan yihiin arrintaana annaga wixii ka socda labada dawladaha dhexe Soomaaliya iyo dawladda dhexe Kenya annagoo rabin arrintaa inaan faragelinoon ka hadlin laakiin waxa muhiim ah أنا نسارن المسؤولين عن كنهاي
shicibka reer Mandera iyo amniga ummadda reer Mandera iyo ummadda kale oo walaalayaasheen oo jiraan aan leenahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku noolnahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraan arrintaa hadda waxay keentay iskahorimaasho aada u adag oo ka socota dhinaca ciidan uu wato ninka wasiirka cabdirashiid uu wato iyo ciidamada federaalka Soomaaliya oo hadda beled xawlo wareegay iyo dowlad la wareegay waxaan rabnaa inaan dowladda dhexe Kenya aan ka codsano inay boqolkiiba boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka oo dhan ay ku dhaqdaan dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kale oo dowladda isku caawin karto dadkaas oo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka usii jeediyaan beled xaawo kuwii beled xaawo joogana ay usoo jeediyaan hubka Mandera taasoo dhib u keeni doonto shicibkan aniga mas-uul ka nahay hadday gaarto amniga ummadda reer Mandera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkiiba boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneen dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaana rabaa in sida ugu degdega badan cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso midda labaad dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan shicibka Manderana waxaad ogaataan mas-uuliyiinta oo dhan boqolkiiba boqol way taageersan yihiin arrinta amniga ummaddaanada wax walbo amniga wax u dhimayna boqolkiiba boqol waan kasoo horjeednaa waxaana rabnaa dowladdeeni Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu degdega badan wixii u dhexeeyo moogtahay dhaqan wadaag ah ay hagaajistaan laakiin annaga waxaa noo daran laba ummad oo jiraan ah oo col annaga shicib ahaan beled xaawana ka imaanin Manderana ka imaanin in lagu soo xawilo ummaddan ay meesha moogtahay xasilooni dhibaato weyn ay kala soo gudboonaato meesha arrintaa waxaan rabnaa inaan ka codsano sida ugu degdega badan dowladda Kenyana inay dadka meesha ka saaraan ciidanka meesha soo fariistana ka iska horimaasho ayaga iyo shicibka intaana imaanin ka hore waxaan rabnaa inay sida ugu degdega badan meesha ka guuraan because uma dulqaadan karno mana qaadanayno waa arrin aad u adag oonu dulqaadan karin hal naf oo dhib uu kasoo gaaro arrinaan aan meeshay ka imaada annaga aan ogeyn wasalaamu calaykum waraxmatullahi mudan intaa ka bixin hal su-aal ayaan wataa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وآدم حاج يوسف وعندما نقصد وقت قلبير كمانديرا أرنتا ولا لين كانت يقوها بلين أنا كان سيء خيرية عن سنية تاسو مانديرا وحلوية غانا ميل نبتقليو بالعرم ولقيدو كجرتي سومالي مركا يسوبر برتبين كتو كوفا كذانا انتا إدابة لكوهر مانديرا اللي ديجي mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada marka colkayaga ahayn oo meel kale ka socdo in la soo qaado magaalada Mandera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno mana ogolin waana ka hor imaadsannahay colkaasna kolley hataa kuwa wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay joojiya meesha hataa colka aad ka haysan joojiya khaas ahaan magaalada Mandera dad hubka la soo galeen oo hadda argagaxis magaalada ay ka rideen magaalada argagaxis baa ka socda oo dadkii maqrab hadii la gaaro hataa canug jiran dhakhtar lama geysan karo dadka waa inay immediately ay ka baxaan haddii nabadgelye rabaan siday walaaleyga ay sheegeen hadda sida governor uu sheegay hubkooda iska dhiibaan isdhiibaan sidii dad oo col ka soo cararay isu dhiibi jireen ay isu dhiibaan haddaa saa yeelaynin waa in with immediate effect يعني حتى ذا أن تاجرنا هاي كبحان مجالات Mandera ماشي كان يوم ملينا إننا نمدلي بهلا إننا مدته كفولن كران هسي آدم مرك أنا واحد كفول إيرانيين وحنلاقينا هاي دولة كينيا كل سدا سانسان كم وقته إن دعم هيصير قالوا أقدر كمدة تاسنا شعب Mandera دبون بوكرة شعب Mandera already دب كفلا على شباب دواتك على كفلا
badan bayna hasta oo already macluumaad ka soo carareen dhibka ayagu iska badan yahay dhibkana cusub oo allah ma doonayno mana doonayno degdeg ugu baxaan magaaladaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم عندي عيد محمد بشير سلوان الله سبحانه waxaan u malaynayaa hadallo badan kuma daraya arrimaha ugu muhiimsan waxaa waaye waxaan rabnaa dowladda Kenya iyo dadka security qaabsan inaan u sheegno annaga haddaan madaxda nahay ma ogolaanayno dad hubeysan oo waddan kale ka imaaday inay dhulkayni iyo countigayni isku cambareeyaan oo xog meeshaas kugu keenaan isku hanjabo oo qalad meesha ka dhacay annaga waxaan ognahay Kenya ciidamada waxay jiraan Soomaaliya waa la ogyahay annaga Kenya aan gormaan ogolaanay ciidamo ka imaaday Soomaaliya inay dhex joogaan ma ogolaanay fursadaasna fursad oo ku salaysan sharciga maaha soo annaga waxaan leenahay dadkaas meesha ay joogaan si degdeg ah ka bixina dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka ku kala qaadno markan TFG iyo federal government haddaan iskabsan yihiin ayaga u taalla marka annaga haddaan reer Mandera dowladda Kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn ha laga qabta si degdegna marka meesha joogo ha lagu bixiyo haddaad ku bixin waysaan dee shicibka annaga ma celin karno banaanbax baa samayn doonaan ayagaa dadka qaban doona ayagaana bixin doona taasna ay gaartay marna so waxaan leenahay si degdeg dowladda shaqada ha qabata dadkaas hubeysan oo meesha joogo meesha ha laga saaro al-shabaab baan haystaa annaga haddana ma ogolaanay dad kale oo ma hubeysan inay soo galaan yaa kale waxay yihiin dhow marka intaas aan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaanay beri ma ogolaanay waa inaga waxaan